مثلا مهمة براروجينينا هالكاس markaan marayno waxay tahay zanaadiqada iyo kafarada ayaga hadda shaqadoodu ba tahay in ay dacniyaan diinkana asalkiisu waa nabiga ila loo soo dhiibay nabiga hadii la dacniyo diin ma harin waxay yiraahdaan nabiga nin dumar badan iska guursanayo danihiisa iska daba socdo shayaadiin la'anahumullah laakiin guurka nabiga sallallahu alayhi wasallam horta inuu badsado ilaahay u badeeyay waa koo rabbiyana wax qaybiya labo nabiga guurkiisa oo xaasaska badan uu guursanayay shahwa kuma dhisnay waxaana sheegaynaa laba arrimood oo qof kasta iska daa muslim qofka cadaalad yar ku jirto uu fahmi karo inaysan shahwa ahayn shahwa doon inaysan ahayn ee masaalix dumarkan iyo muslimiinta danahooda ay ahayd labadaas arrimood midda koobaad waxay tahay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam goormuu dumar badan guursaday konton sano markuu sana konton galay kadib haday shahwo iyo waxa weeyaan dumar jacayl tahay haday dhalinyarada markuu ahay carab oo dhan saas u sideen markaasuu toban guursaday laakiin toban nin konton gaari waa fahmi karta oday markuu odayoobay kadib way ka hor hal mid khadiiju qaba ilaa khadiija ay dhimatay khadiijana sanadii tobnaad ay dhimatay oo bixsada khadiija hal qof lama guursan ayada waa nuqdada koobaad oo ku tusayda arrin shahwa ma ee waa arrin maslaxad iyo xikmadeed iyo dacwo labo tan labaad hal gabar ah oo bikra Aisha ka guursan inta kale waa islaam garoba qaarkood agoonley oo agoontaas inuu la koriyo oo qalbigooda badbaadiyo uu guursan hadii ay noqoleen arrin shahwo ee gabdhaha yar guursan gabdhaha kuwa ugu jecel la wasiila Soma hal gabarahon bikra Aisha ka guursan tiiri maxay ahayd arrintan arrin maslaxay waxa weey mararka gabadhan nina qabay ninkii waa la soo hijrooday waa la dilay sida Salama oo kale agoona u soo hartay gabadhi waa walwalada Soomahan gabadhaas inuu qalbigeeda nooleeyo oo agoonta la koriyo u fiirsad mararka gabal qabiilo dhan uu raba inuu la xidido ay nabiga ku soo xirmaan oo nabigi iyo iyagu calaaqa fiican dhex marto haday nabigi la ku soo xirmaan waa islaaxiya juwayriya markuu guursaday reer bani mustaliq inta dagaal la isku qaaday oo la jabsha la soo qafash juwayriya nabiga la siiyay sallallahu alayhi wasallam nabigu waa xoreeyay markaasuu guursaday muslimiintii oo dhan xoreeyay reer bani mustaliq oo leeyahay nabiga seediyalkiisa adoonsayn waxa la gabar uga baraka badan tolkeedu ma aha dadkii marka maxay noqdeen seediyalkii nabiga guulay heleen islaamkii u soo duulnay marka wax weyn calaaqad inuu dadkan la yeesho oo dadkan islaamka ku xirmaan qoyskan inuu agoonta la koriyo masaalix iyo xikam uu nabigu u guursanay sallallahu alayhi wasallam rabbul alamin ana u baneeyay